magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa dowladdu waxa ay bilowday tallaalka la siinayo dadka shaqaalaha ee khatarta ugu jira in ay qaadaan xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Tallaalkaasi ayaa magaciisa la yiraahdaa Sputnik V COVID-19. haddaba waxaa lagu bilaabay 70 xarumood oo caasimada laga furay. Ruushka waxa uu noqonayaa dalkii ugu horeeyay ee isagu bilaaba tallaalkan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. tallaalkan oo lagu sameeyey wadanka Ruushka waxaa iminka la siinayaa dhakhaatiirta, shaqaalaha caafimaadka guud, macallimiinta iyo shaqaalaha adeegyada bulshada, maadaama oo ay ka mid yihiin dadka foolka fool ula shaqeeya bulshada xanuunkana si fudud u qaadi kara. Ruushka ayaa bilaabay isticmaalidda tallaalkan iyada oo tiradii ugu badnayd ee dadka xanuunka uu ku dhacay Sabtidii ay gaadheen 28,782 qof, waxaana ku jira 7,993 kiis oo laga helay magaalada Moscow. maxamuud carab waxa uu degan yahay magaalada Kiev ee dalka Ukraine, waana wariye madax bannaan. waxaan weydiiyey qaabka tallaalku u socdo iyo sida loo bixinayo. aad baad walaal Cabdixaafid u mahadsan tahay. dalka Ruushka ayaa bilaabay tallaal wareegga saddexaad ee COVID-19. magaca tallaalka Sputnik V waxaa loogu magac daray dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee ay soo saarto dalka Ruushku, gaar ahaan midowgii Soviyeeti 1957. in ka badan 100,000 oo qof ayaa laga tallaalay cudurka coronavirus, gaar ahaan dadweynaha loo arkayay inay khatar ama halis ay ugu jiraan qaadista cudurka COVID-19 sida dhakhaatiirta iyo macallimiinta. tallaalkan walaal waxaa loogu talagalay in lagu kiciyo jawaab ka timaada 2 tallaal oo la kala qaaday oo 21 maalmood ay u dhaxayso, kaas oo mid kastaba ay lagu salaynayo fiktarka fayraska ee kala duwan ee sida caadiga ah keena hargabka, kuwaasoo loo soo gaabiyo AD5 iyo AD26 sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Ruushka Mikhail oo qaramada midoobay usoo bandhigayay tallaalka Sputnik V. tallaalkan ayaa ku dhow kii ay soo saareen jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca ee Ingiriiska. Dr. Maxamed Caydiid Hurre waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud, waxaanu degan yahay magaalada Sheffield. waxa aan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo tallaalkan iyo waxay iskaga midka yihiin tallaalka UK lagu sameeyey. runtii waa isku mid wax fara badan. tallaalkan iminka Ruushku bilaabay iyo tallaalkan jaamacadda Oxford ee dalkan Ingiriisku ay hore u samaysay ee weli isaguna tijaabooyinkii ku jira. marka aad eegto halka ay ka bilaabeen laga ambaqaaday labada tallaal waa isku waxbay ka ambaqaadeen. maraaxilka ay mariyeen markii ay sameynayeen dhakhaatiirta Ruushka iyo kuwan Oxford jaamacaddan joogay, waxaad moodaa in qoladan Ruushku aanay warbixin badan laga haynin oo aanay la wadaagin dunida kale, bal warkii yani wixii ay sameeyeen iyo sida ay mareen. laakiinse waxyaabaha ay badan waa iskaga mid, tallaabooyin badan iyo halka ay ka bilaabeen. waxyaabaha ay ku kala duwanaan karaan waxaa ka mid a tusaale ahaan tallaabooyinka ay markii la sameynayay tallaalkan la maray xagga matalan genetic DNA-ga markii wax laga bedelay qaabka loo injineerinayay. dabcan qolada Ruushka waa lagaga horeeya oo jaamacaddan Oxford waxay noqdeen aada uga horeyso oo xagga ay waxyaabo badan ay iyagu magaranaysaa ay kaga fiican yihiin. taasoo keentay xagga waxtarka marka la eego inuu kan Oxford ay samaysay uu 95% waxtarkiisu uu gaadhsiisan yahay, halka ka Ruushkana wararka qaar sheegayaan inuu 70% yahay. markii dadkii lagu tijaabiyey qaarna ay soo baxeen leeyihiin 90 wey, 90%. marka dabcan guud ahaan 90% waa isku mid. waxyaaba aan aada u badnayn bay ku kala duwan yihiin, laakiin marka la eego laysku soo wada duubo tallaalkan Maraykanku wada ee iminkana dalkan Ingiriiska laga hirgeliyay Pfizer ayaad moodaa inuu ka wada waxtar badan yahay markii la tijaabiyey. laakiinse isagana waxaa muran ka taagan yahay qaabkan la maray iyo dariiqo cusub oo aan hore loo tijaabin. hay-adaha caafimaadka Ruushka ayaa xaqiijiyey in ay 508 qof u dhinteen xanuunka 24 saacadood ee u dambeeyey. guud ahaana tirada u xijaabatay COVID-19 dalkaasi waxa ay gaadhay 42,684 ruux.
duqa magaalada Moscow ayaa sheegay in 5 saacadood ee ugu horeeyay ay talaalka isu diiwaan galiyeen dhakhaatiir, macallimiin iyo shaqaale kale, isagoo sheegay inay naftooda iyo caafimaadkoodaba khatar gelinayaan. ilaa saacad ayuu qaadanayaa talaalkani. 10 daqiiqo ee u horeeya caafimaadka guud ee qofka ayaa la eegayaa. ilaa 15 daqiiqana waxaa la diyaarinayaa talaalka oo u baahan qaboojiye ilaa 18 centigrade ah. 15 daqiiqana qofka ayaa la qiimeynayaa xaaladiisa marka uu talaalka qaato. dadka imika la talaalaa waa inay 3 toddobaad kadib talaal kale la siiyo. 42 caanamaal kadibna marka ay talaalka qaataan waxaa la aaminsan yahay inuu qofku iska difaaci karo fayruska keena COVID-19.